السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله waxay noo sii soconayaa xajirkeena nervous systemka. Videogan waxaan ku soo qaadanaynaa function and disorder of the cranial nerve. Cranial nerves. Haddaba markaan cranial nerveska aan ka hadalno saan horeba u soo sheegnay located ku yaalaan iyo inay laba kamid ay ku yaalaan cerebellumka ay tanka kalena other 10 nerveska kale ay ku yaalaan midbrainka. marka insha Allah hadda waxaan ka hadli doonaa functionka ay qabtaan nerves and disorderska ku imaan kara iyo waxay sababayaan haddii uu disorder ku yimaado nerveskaas. hadda markaan ka hadalno nerve 1 oo ah olfactory nerves waa nerve 1 oo ah olfactory nerve. Haddaba olfactory nerve shaqadiisu wax weeyaan waa for alteration means for smell. urta uu qaabilsan isagu urta ayuu isagu qaabilsan yahay. haddaba markaynu ka hadalno waxa weeye waa it is sensory way. waa sensory nerve. sensory nerve way. olfactory nervesku waa sensory nerve. shaqadiisuna ay tahay inuu u qaabilsan yahay urta iyo waxyaabo sidaas ah. olfactory nerve inta badan wuxuu ka howlgalaa isagu waa nosiska. haddaba haddii uu dhaawac ku yimaado olfactory nerves wuxuu sababayaa wuxuu keeni karaa symptomska lagu arkayo calaamadaha uu yeelanayo qofkaasi muxuu yahay haddii uu dhaawac garoobo olfactory nerves. olfactory nerves haddii uu dhaawac garoobo qofku wuxuu arkayaa anosmia. anosmia ayaa qofka lagu arkaya. That means the loss of sense of smell. inuu qofkaasi uu ka lumayo urtii la urinayo inuu waxba urinayninba. oo not loss of sense of smell. dareenkii uu wax ku urin lahaaba uu ka tegaya. oo first symptoms lagu arkaro. Also can cause hyposmia. Hyposmia means what decreases of smell. in hoos u dhaco qofkii urtiisa hoos u dhaco. hoos u dhaco ku imaado oo wax badan una urinaynin hoos u dhacdo. sidoo kale kan cosmia soo kara qofkaasi. kan cosmia micnaheedu waxay tahay in qofkaasi uu urinayo waxyaabo something bad. waxyaabo ur xun leh oo urayo waxyaabo aad u xun markiisaba uu dareemayo inuu urinayo waxyaabo aad u xun. haddaba maxaa sababa ama cause gareeya in olfactory nerveski uu damage ku imaado? maxaa cause gareyn kara ama maxaa sababi kara? two things. waxa sababi kara trauma. waxa kale oo sababi kara meningitis inuu qofka ku dhaco. ama trauma jubilee ka gaadho ama meningitis inuu ku dhaco. that is kuwaas waxay sababi karaan olfactory nerveskaasi inuu dhaawac garoobo ama uu dhaawac ku yimaado. hadduu dhaawac ku yimaadana ay la yimaadaan calaamadihii aan soo sheegnay. calaamadihii aan soo sheegnay inay la yimaadaan. sidoo kale waxaan ka hadlaynaa nerve 2. nerve 2 oo ah optic nerves. waa nerve 2 waana optic nerve. optic nerve shaqadiisu haddaba isaga maxay tahay? waa for vision. aragga ayuu isagu qaabilsan yahay. optic nerve aragga ayuu qaabilsan yahay. aragtida iyo waxyaabo saas ayuu qaabilsan yahay. wuxuu ka shaqeeyaa isha eye. our eye you count the optic nerves. inshallah waxaan arki doonaa nerfiyada qaarkood meel waxaad fikir hawlqaan shaqooyin isleedahay waana combined work bay qabtaan. shaqooyin isku mid ah ayay qabtaan oo isleeyihiin. inshallah waxaan arki doonaa. haddaba optic nerves wuxuu ka hadlaa visionska isheena ayuu soo ka hawlgalaa waana aragtida ayuu maxay. haddaba optic nerves waa sensory nerve. waa sensory nerve weeyso. haddaba haddii uu dhaawac ku yimaado ama uu dhaawac soo gaaro maxaa sababi kara ama maxaa lagu arki karaa? waxa lagu arkaa double vision. double vision inuu qofkii laba arkayo double vision yeesho. laba arkayo scotomata waxa la yiraahdaa diminished vision inuu hoos u dhaco visionkii. visionskii ayaa hoos u dhacay. waxaa lagu arkayaa qofka scotomata
means scotomata means waa diminish inay hoos u dhacdo visionskii qofkii aragtidiisii ayaa hoos u dhici taas maxaa la yidhahdaa vision hoos u dhacaysa aragtidiisii oo qofka hoos u dhacaysa oo maxaa laga yaabaa inuu meel fog wax ka arkin waxaa laga yaabaa inuu waxyaabaha qaar arag waxaa laga yaabaa dhulka hadduu yar muddo noqdo inuu markaas waxyaabaha keenaya haddaba maxaa kaoskeeni kara oo sababi kara optic nerveskaasi in uu maxaa hayday dhaawac soo gaaro ischemic edema maxaa sababi kara ischemic edema ischemia edema oo maxay tahay waa edema ku imanaysa our brain taasa kaoskeeni karta maxaa kaloo kaoskeeni kara hemorrhage baa kaoskeeni kara inuu dhiig ku furto maskaxda sidoo kale waxaa kaoskeeni kara other trauma inuu dhaawacyo kalete ama jug kaleto accident kalete uu soo gaaro qofkaasi jug kalete uu soo gaaro yaa kaoskeeni karta markaan u gudubno nerve 3 oo ah oculomotor nerve which control the ciliary muscles ciliary muscles can use control oculomotor oculomotor nerve isagu shaqadiisu waxay tahay inuu controlo ciliary muscles waa smooth muscles kaas oo smooth muscles in the eye indhahina responsibilitygiisuna inay tahay changing the shape of the eye shapeka ayga inuu change garayo particular the lenses qof markuu xarkayo iftiinka ku dhacaya lenseskiina wuxuu sameeyaa iftiinka ku dhacaya shape uu sameeyaa si uu iftiinkaas una u dhaawicin ama uu wuxu gaarsiiyo that's way kaasna waxaa ka howlgala oculomotor nerveska ka howlgala haddaba nerveskani shaqadiisu waxay tahay inuu ka controlo ciliary muscleska smooth muscles oo indhaha isheena ah that is kaasoo responsible for changing the shape of the eye particularly the lenses lenseska haddaba waa motor nerves and also parasympathetic nerves nerveskan oculomotor nerves waa motor nerves sidoo kale waa parasympathetic nerves wuxuu shaqeeyaa ma aha macnaha waxaan controli karno ma aha waa parasympathetic nerves haddii uu damage garoobo maxaa sababaya haddaba damage this nerve can cause waxaa kamid diplopia kamid double facies diplopia inuu qofkaas yeesho double facial yeesho yaa kamid sidoo kaleeto waxaa there is a deviation down out of the eye inuu deviation ku imaado ishii deviation down isma ku imanaya eye haddaba maxaa sababi kara oculomotor damage maxaa sababi kara trauma maxaa sababi kara trauma ayaa sababi karta haddaba markaan u gudubno nerveska xiga oo ah nerve 4 waa trochlear nerve waa which controls intrinsic eye muscles you control maxaa nidhi waa trochlear nerve isagu wuxuu controlaa intrinsic eye muscles its motor nerve isagu inta badan wuxuu keenaa problem with the eye haddii uu dhaawac ku yimaado problem with the eye ishii dhaawac ku yimaada but similar condition with the nerve 3 soo sheegay wuxuu la condition yahay nerve 3 dhibaatooyinka isagu hadduu dhaawac gaaro dhibaatooyinka badan problem with eye keena waxa loo yaqaan vertigo uu keena vertical diplopia qofkaasi inuu double facial yeesho vertigo inuu yeesho toddobaad nerve pulse inuu yeesho qofkaas nerve pulse means pulse or paralyzed wuxuu yeelan karaa nerve pulse means or paralyzed
nerfigaas inuu paralyzed noqdo dee markuu paralyzed noqdona musculiska maxay noqonayaan paralyzed hadda maxaa cause gareeya waxyaabaha cause gareeya maxaa kamid ah inuu nerviska nerfotracheal nervus uu dhaawacaro maxaa cause gareeya disease baa soo kara xanuun inuu sababo sidoo kaleete waxaa soo kara injury ayaa soo karta sidoo kaleete injury ayaa soo kara haddaba marxaynu u gudbaynaa nerviska xiga oo ah nerve 5 trigeminal nerve trigeminal nerve haddaba trigeminal nerve markaa ka hadalno waa important for the mastication muscles isagu wuxuu muhiim u yahay ama shaqadiisu tahay ama uu muhiim u yahay mastication muscleska muruqyada ka shaqeeya for chowing inaan wax calalino oon calalino muscleska ka shaqeeya for chow isagu muhiim yahay waana its motor nerve weeyaan it's also sidoo kaleete waa sensory nerve lagu kala for the skin sensation in the face wuxuu kaleete samayn karaa skin sensation in the face-ka ayuu sensory nerve yahay waa motor nerve also this sensory nerve for the skin sensation in the face maanaha waa sensory nerve skin of the vices-keena wejiyadeen haddaba haddii muxuu sababi karaa isagu haddii uu dhaawac ka yimaado trigeminal nerveskaasi muxuu sababi karaa isagu wuxuu sababi karaa pain waxbuu ku sababi karaa painka wuxuu ku sababi karaa all over the face dhammaan wejigeenu ku sababi karaa maadaamuu sensory uu yahay vaseska u qaabilsan wuxuu pain ku sababi karaa particularly in the forehead regions qaybtan hore forehead regionska ayuu ku sababi karaa sidoo kaleete wuxuu sababi karaa waa difficulty in clenching the jaw inaan wax calalino aad u adkaanaysa very difficult aad u adkaanaysa haddaba for the sensory part of the nerves markaan ka hadalno waxaa kamid ah inuu keeno neuralgia uu keeni karaa which is the cell oo ah cell herpes virus baa keeni kara carcinoma cancers baa keeni kara maxaa keeni kara waxyaabaha ku keeni kara sensory qaybta sensoryga trigeminalka macnaha waxaa ku keeni karaa inuu damage soo gaaro waxaa kamid ah neuralgia kamid ah herpes virus baa kamid ah herpes virus loo yaqaan kamid carcinoma kamid ah cancer waxyaaba saasa kamid oo keeni kara for motor parties qaybta motoriska maxaa keeni kara haddaba due to compression of the nerve by surrounding the blood vessels baa keeni kara maxaa keeni kara compression maanaa cidhiidhi ay ku keenaan blood vesselska ku hareersan isaga oo cidhiidhi ku keena ayaa keeni kara oo macnaha xoog u qabta ayaa keeni kara waxaanu ka hadlaynaa another nerve oo ah nerve 6 ka hadlaynaa abducen nerve markaynu ka hadalno wuxuu isagu controlaa abducen nerve intrinsic a movement not muscle okay waa a movement and associated with nerve 4 sidoo kaleete associated with nerve 4 wuxuu la xidhiidha soo nerve 4 wuxuu ka shaqeynayay musculeska kana waa eye movement eye maxaa ka shaqeynaya waa muscle inuu ku dhaqaajin ishin sidoo kale isagu wuxuu la xidhiidha nerve 4 iyo isagu nerve 6 abducen iyo trochlear nerves waxay xiriir bileey haddaba abducen nerves it is a motor neuron waa motor neuron haddaba cannot be moved laterally waxaan idhi sida laterally u dhaqaaqi maayo haddii uu dhaawac ku imaado ama uu dhaawac keenayo muxuu samaysmayaa isheenaasi cannot be moved lateral dhinaca lateralka u weecan mayso gudaha soo gali bas already waxaad arkaysaa qofkii oo ishiisaasi dhankan ay u jeedo ayaad arki doontaa marka lateral bodo macnaha cannot be abduction ma sameynayso ishaas abduction ma sameynayso that's oo sababta loo yidhi abduction sababta loo yidhi nerveskaasi dhiig ciladoo keenaya waxa ah inuu sameeyo shaqaduu qabanaya abduction inuu sameeyo isha adduction ku sameeyo that's why haddii uu damage soo gaarana cannot be
abducted ma sameynayo this way wala sababta magaca loogu bixiyey abductions shaqadiisa ah inuu abduction sameeyo hadduu dhac ku yimaado waa done ma dhaqaaqayso isaas sidoo kaleeto waxaa ku yimaada nerve parts baa ku imaanaya inuu paralyzed noqdo nerveskaas haddaba what cause damage these nerves nerveska maxaa ka damage garan karaa ama damage ku keeni karaa waxaa ku keena waa cerebral vascular accident cerebral vascular accident inuu qofka maskaxdii dhaawac ka soo gaaro accident inuu ku dhaco gaari inuu duqeeyo meena bud in laga saaro bir iyo wax lagu jiyo waxyaaba saas accident ku dhaco cerebral sidoo kaleete combined injury inay ku dhacaan mana from other cranial ka iman kara ina dhaawacyo kaleeto oo ka imaanayo other cranial nerveska kaleete sida trochlear nerve 4 oo kaleeto hadduu dhaawac ku yimaado diskan maadaama ay associated yihiin oo shaqo mid hata qabanayaan kana waxaa iman kara inuu cilad ku yimaado sidoo kaleete trauma ayaa soo dhici kara haddaba waxaan isu gudbinaa nerve 7 nerve 7 oo isagu ah facial nerve isagu ah facial nerve haddaba facial nerve markaan ka hadlayno isagu important nerve for test waxay soo shaqayso tahay test dhadhanka saliva and tear secretions inay soo siidaayo saliva tear ilinta inay soo siidaayo secretions also facial expressions soo qabaaqsi facial expressions wajigeena facial expression oo ku sameeyo macnaha qofka in laga dareemo markuu calisan yahay markuu faraxsan yahay this waxa laga dareemaa facial expression ka uu sameeyo laas way u qaabisay waana sensory nerve and also motor nerve sidoo kale wuxuu associated with parasympathetic controls wa parasympathetic controls ay isugu leeyahay haddaba haddii uu maxay ahayd facial nerve uu dhaawac ka yimaado xasmisba well, difficulty with facial expression on the side of the face, depending which of the two facial nerves damaged. Perisparse value. Perisparse. That means perisparse value. Perisparse. Hanadi? Peris. Where? Perisparse. Perisparse waxaa loo yaqaanaa in qayb ka mid wejigaasi ay noqoto paralyzed ama waxaa laga yaabaa nerveska two facial nerves baa jira nerveskaas dhaawacu hadduu soo gaaro qaybtan right-ka qaybta right-ku ay shaqayn weydo ama qaybta bidix ay firdhin weydo oo no facial expression uu noqdo qofkaas perisparse baa loo yaqaana sidoo kalete impair the sense of taste qofka maxaa ka guriyey dhadhankii inuu qofkani wax ku dhadhan waayo sidoo kalena face paralysis face paralysis no wejiga inuu paralysis noqdo qofka gaar ahaan qayb baa inta badan noqoto haddaba maxaa kaos gareeya inuu facial nerveskaas uu dhaawac gaaro waxaa kaos garan karaa waa fastovirus maxaa kaos garan karaa fastovirus yaa kaos garan karaa sidoo kaleete waxaa kaos garan karaa trauma inuu qofka isku dhaco trauma yaa kaos garan karta haddaba waxaan loo gudbaynaa waa nerve 7 then another nerve that is nerve 8 nerve 8 oo ah vestibulocochlear nerve vestibular cochlear nerves waxa isagu ay shaqadiisu tahay ama uu ka howlgalaa sidoo kale isaga waxa loo yaqaanaa oncotic nerve waa loo yaqaanaa wuxuuna isagu shaqadiisu tahay by important way hearing-ka and vestibular functions so balancing in the ear and also the body efficiency and also motor isagu muhiim yahay hearing-ka and vestibular functions sidoo kale isaga shaqadiisu waxay tahay inuu balance gareeyo in the ears and body isku balance gareeyo waana sensory and also motor nerves sensory iyo motor nerves labadaba uu yahay haddaba haddii uu dhaawac soo gaaro ama ay dhaawacyo ka yimaadaan maxaa
impairment of hearing qofkaas hearingkii inuu problem ka yimaado maqalkii xusa vertigo inuu ku dhaco tawakhaad tinnitus inuu ku dhaco tinnitus means waa maxay tinnitus means waa qofkaas inuu guux sida wax marwaxadoo kaleeta dhigiisa ka dhex guuxda tinnitus oo kaleeta ku furmay sidoo kaleete prelife fistula inuu ku dhaco sidoo kaleete waxaa lagu arkaa also damage to vestibular cochlear caused by disruption in the ear drumkii muxuu disrupt garaya ear drumku disrupt garanaya ear drumka iyo disrupt ku keenaya waxaan ugu gudbinay nerve 9 glossopharyngeal nerves nerve 9 oo ah glossopharyngeal nerve glossopharyngeal nerves glossopharyngeal nerve waxa waaye glossopharyngeal nerves isagu functionkiisu waxay weesaas many functions play including test ay kamid tahay tango sensation ay kamid tahay sleep secretion ay kamid tahay also oxygen and carbon dioxide monitoring in the blood ay kamid tahay xataa shaqadiisu inuu qabto testigii sidoo kaleete nerve 8 la xidho waxaan jeednaa 7 testigii tango sensations brainka carabka sleep secretion inuu soo shidayo sleep secretion and also oxygen and carbon dioxide monitoring in the blood iska dhexdeeda inuu monitor gareeyo it is a motor and sensory nerve and also parasympathetic nerves haddii ay haddaba cillad ku yimaado maxaa cilladaha iman kara maxaa kamid ah haddii ay dhaawac soo gaaro glossopharyngeal nerveska oo ah nerviga sagaalaad maxaa ku iman kara waa pain in the tango carabka wuxuu ka dareemi doonaa tango throat pain curaha ama hunguriga pain kadib tonsilite pain buu yeelan doonaa ear pain sidoo kaleete ear pain buu yeelan doonaa sababtuna waxay keeni kartaa compression of the nerves sababta marka macnaha cilada wuxuu keeni karaa compression of the nerves cadaadis kaga iman kara bloodska ku wareegsan blood vesselska ku wareegsan in the brain kaasoo kaleete haddii ciridu kaga imaado ayaa keeni karta inuu soo faasina oo damage soo gaaro glossopharyngeal nerveska sidoo kaleete nerve 10 oo ah nerveska tobnaad it's important nerve waa nerve aad u muhiima nerviga tobnaad aad iyo aad ayuu muhiim yahay isagu oo ah vagus nerve aad iyo aad ayuu isagu muhiim yahay vagus nerve aad iyo aad ayuu isagu muhiim yahay sababtoo ah haddaba saan soo sheegnay vagus nervigu wuxuu controlaa testiga pharynx activityga epiglottis sensationka sidoo kale wuxuu isagu innervation gareeya gastrointestinal tract sidoo kale wuxuu controlaa trachea cardiac muscleska sidoo kale cardiac muscleska sidoo kale controlaa marka aad iyo aad buu muhiim yahay maxaa la wuxuu controlaa baan idhi isagu uu ka hadla testi pharynx activity epiglottis sensation sidoo kale wuxuu innervation gareeya gastrointestinal tractka waxa kale uu controlaa isagu trachea cardiac muscleska sidoo kale marka haddii uu damage ku yimaado muxuu it can cause wuxuu sababi karaa isagu dysphagia inuu ku galo difficulties waa laweyn inay liqitaankii ku adkaado qofka difficulties waa laweyn maadaama epiglottiska sensationska iyo pharynx waxa dhan sidoo kale difficulty in speaking inuu qofkaas hadli kari waayo maadaama pharynx activity-ga isagu sensation garanayo uu hadli kari waayo qofkaasi inuu ku adkaado hoarseness inuu yeesho xabeeb inuu yeesho qofkaasi pain inuu dareemo haddaba nerveskaas saasaan kaga tegaynaa nerveska xiga oo ah nerve 11 nerveska koow iyo tobnaad accessory nerve koow iyo tobnaad oo ah accessory nerve haddaba accessory nerveskaas isagu waxay shaqadiisu tahay nerveskan accessory nerveskaas isagu wuxuu controlaa pharynxa soft palate muscle activity-ga sidoo kaleete
the cranial portions qaybta wuxuu controleyso soft palate muscles ee cranial portions and it control soo kale wuxuu sternocleidomastoid muscle loo yaqaan sternocleidomastoid ee maraxda qoorta uu control so trapezius musculus the spinal portions qaybta spinal portions ayuu control is a motor nervous wuxuuna la mid yahay nerve 9 and nerve 10 la mid yahay maxaa muxuu control larynxka soft palate musculeska qaybta cranial portions waliba ayaa controlsha sidoo kale sternocleidomastoid and trapezius musculus oo ay controlsho qaybta spinal portions wana nerve motor nerve wuxuu kaloo la mid yahay nerve 10 iyo nerve 9 haddaba hadday dhaawac ku yimaado inuu paralyze garoobo sternocleidomastoid musculeski oo qoorti qofkii dhaqaajin way paralysis ku dhacaa qaybta sternocleidomastoid inability to rotate the neck inuu qoorti wareejiyo ma awoodi uma yeesho qofkaasi paralyzed trapezius musculus inuu ku dhaco paralysis qaybta shoulders nerve 12 isaga markaynu ku hadalno oo hypoglossal nerfiga ugu dambeeyay nerfiyada waana hypoglossal baleed hypoglossal nerves wuxuu isagu ku yaalaa waa below the glossopharyngeal sababta loo leeyahay hypoglossal wuxuu ku hoos yaalaa glossopharyngeal nerves it is a motor nerve weliba wuxuuna controlaa muscle of the tongue muscle-ka carabka ayuu soo controlkiisu yahay haddii haddaba uu dhaawac ku yimaado maxaa sababi karaa wuxuu ku keeni karaa waa lingual paralysis lingualkiin paralysis garoo swallowing difficulty inuu qofka liqitaan ku arkaa sababtoo carabkii paralysis noqonaya carabkii wuxuu noqonayaa paralysis that's why qofkii inuu wax liqo sababtoo inuu wax liqno waxay naga caawiyo carabka naga caawiyo that's why uu qofkaas soo noqonayo paralysis haddaba maxaa cause gareeya what causes this nerve damage maxaa cause gareeya nerves can damage garoo trauma cause gareyn kara inuu trauma qofka ku dhacdo stroke yani inuu stroke ku dhacso infection ba cause gareyn kara infection qofkaas ku dhaco calaamado la sheegi karo waxaa kamid ah macnaha muscle tangle atrophy or due to damage of this nerve muscle tangle atrophy musculoskii atrophy ku dhaco macnaha paralysis noqdo sababtoo dhaawaca soo gaaray nerveska darteed waxaa la arki karaa inuu qayb carabka kamid ah ayna shaqeynayn yaa la arki karaa waxyaabaha la arki karo qayb carabka kamid ah inayna shaqeynayn damage soo gaaray nerfiga qaybta controlsha ayaa laga yaabaa that's all dhammaan waxaan kasoo hadalnay cranial nerveski functionkoodii and disorders-kooda insha allah waxaan rajeynaynaa video ka hesheen fadlan please haddii uu yahay midaan wax badan ka faa'iiday fadlan subscribe asxaabtaadana fadlan usii share gare aad iyo aad baa mahadsantahay waxaan iga tegayaa meel kastoo caalamka aad ka joogtaanba sidaa iyo amaana allah